maanta halkan waxa isku kaya keenay inta wax xildhibaanaha oo ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland inaanu yara balif garano cid kasto ay khusayso hawshan ama xeerkan waxa jiray horta marka hore waxaan u soo jeedinaynaa oo noo sheegaynaa garyaqaanka guud waa ninka waxa labada gole ka soo baxa madaxweynaha u akhriya madaxweynaha ka eega madaxweynuhu madaxa wax ku sida Soomaaliland oo dhan waxa weeyaan waxa loo baahan yahay cid garyaqaanka guud noqonaysa cid ka biliif garaysa ama ka eegta wixii uu madaxweynuhu loo soo gudbiyay xeerarka dalka lagu dhaqay waxa meesha uu joogaana waa inta waxa weeye dawladdii hore kuwii gudbay dawladda imika joogtaa inay ka daba toogto mooye khaladku male intii imika dambe madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu haystay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland xeer hore oo xawaaladaha oo xeer lambar leh waxa loo wixii taariifad iyo madaxweynuhu uu magacaabo dekreeto ku magacaabo iyo taariifada miisaaniyadda maaliyadda dawladda ayaa ugu taala nimanka wakiilada in ay gaar u leeyihiin oo iyagu ay ka eegaan dawladda waxa loo wixii xeer lambar leh ee golayaasha ka soo baxa wuxuu ku salaysan yahay qodobka 8 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markuu markuu maro ee waxa uu ku dhawaaqayo uu maro ee madaxweynihii uu saxeexo ayuu dhaqan galiyay meelay ku taalaan ma jirto xeer lambar leh haddii ay doonayaan inay madaxweynaha u gudbiyaan xeer aan ku salaysnayn qodobka 8 ee dastuurka dadka taariifadayna mariyaan baa qaboonay oo ka daayeen halkaas ay ka iska bilaawaan ila waa kuwa ilaawibi waxaan soo jeedin lahaa anagu muraad kale dee kamalihin hawshan laakiin xeerkan waa xeerka lagu dhaqayo dalka kan iyo ka horeba anagu bariyo ka maalinba waan iska tigi doonaa laakiin xeerarkaas waa xeerarka dalka lagu dhaqayo aan dhimanahayn dadku u dhimanayaa marka waxaan leeyahay mudane madaxweyne aniga oo kalsooni badan ku qaba waxaan leeyahay oo wixii khaldan lafteeda ee aan arko ka hadli kara waxaan leeyahay xeer aan qodobka 8 ee dastuurka waafaqsanayn madaxweyne sharci ma waxa kale oo arkay madaxweyne xeerarka u soo gudba madaxtooyada markay ku soo gudbeen lagu leeyahay dhaqan geli waxa ku qoran golaha wakiilada qura iyo xogayahooda intaas ka qoran marka lagu soo gudbiyo hatta laguma xuso golaha guurtida berigii hore way jiri jirtay ama ka hatta laguma xuso oo laguma qoro oo wixii iyagu ay ka soo shaqeeyeen warqadoodii laguma lifaaqo way ku lifaaqnaan jirtay berigii hore mudane madaxweyne waxaan leeyahay dalka iyo diinta waxaba de kitaaba loo mariyay anaga wixii ay noola ekaato ama ay tahayna inaanu ku dhawaaqno sharci baanu leenahay waxa weeye 76 iyo 8 labadaas way iswaafaqaan ka awoodda lena waa 38
في رجع madaxweyne waxaad u fiirsataa oo aad naga eegtaa oo aad labada goole dhex ugu tahay madaxweyne waxa weeye wuxuu garyaqaankaaga guud eegayo madaxweyne eeg waxaan leeyahay garyaqaanka guud kuma filo sharciyada dalka been sheegi maayo kuma filo sharciyada dalka waayo hadduu sharciyada dalka ku filayo dee gole keliya wuxuu keenay muu qaaday inuu madaxweyne ma horgeliyay ka waxaan leeyahay hadalku waxba sii badin maayo waar dastuurka iyo xeerarka dalka yaa la dhaafi oo yaanay golaha wakiiladu oo weliba waxaan anigu u soo jeedin lahaa labada gole ee baarlamaanka guurtiya wakiilada shirkudoon bay leeyihiin shirkudoon hadda dambi cad baa lagu hayaa shirkudoonka golaha wakiilada waxaan isaga xaq u leh inuu eegay isaga xaq u leh inuu xogayihiisa iyo isagu ay isticmaalaan maaha waxaan labada gole soo maray malaa wax kaluu ka qabaa golaha guurtidee dee ha loogu dhaarto golaha guurtidu wuxuu yahay shirkudoonka golaha wakiilada ha loogu dhaarto golaha guurtidu wuxuu yahay haddaan isagu garanayn waa ka baxay